nabadgelyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin sharafi korkiina ha ahaato ramadaan aad buu u soo dhawaaday waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago 10 arrimood oo aynu ugu diyaar garoobayno ramadaanka waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu ilaahay naga dhigo kuwa loo naxariisto loo dambi dhaafo nartana laga xoreeyo qodobka koowaad waxa uu leeyahay niyad wanaagsanaan niyadu waa waxa ugu weyn ee qofka muslimka go'aamin kara waakii xabiibka sallallahu alayhi wasallam uu yiri inama al-a'malu binniyat a'maasha aynu sameeyno oo dhan meesha laga kontrolo ama meesha laga hago waa niyada marka waa inaynu wanaajino niyadeena niyo wanaagsan aynu ku soo dhaweeyno ramadaanka sheyga labaad ama qodobka labaad inaan ilaahay si wanaagsan u sii garano ramadaan waa bil cibaado waa inaynu badino cilmi raadinta inaan barano rabbi sifaadkiisa magacyadiisa awoodiisa goortaad ilaahay garato kuwa wanaagsan ayaad ka mid noqon doontaa qodobka saddexaad inaad nabiga sidii iyo si ka wanaagsan u jeclaato jacaylka xabiibka waxaa lagu galayaa jannada sidaynu la wada soconno waakii xabiibka uu yiri almar'u ma'a man ahab qof walba qofka uu jecel yahay ayuu la jirayaa ama micigiisa ahaanaya waa inaad kordhisaa ama aynu kordhinaa jacaylka aan xabiibka jecelnahay aynu ku dayanaa wadadiisa sababtoo qofka la jecel yahay mar walba waxa uu jecel yahay iyo waxa uu sameeyo ayaa la sameeyaa jeclaaw xabiibka oo aynu ku dayano qodobka afraad inaan nafteena xisaabino badbaadada adduun iyo aakhiro waxa weeye qofka inuu wax wanaagsan dhex ahaado goortaad is xisaabiso wadada aad ku sugan tahayna aad ogaato waxaad tahay nin caaqil ah waakii xabiibka sallallahu alayhi wasallam yiri alkayisu man daana nafsa wa amila lima ba'da al-maut caaqilka waa kan naftiisa xisaabiya una shaqaysa dhimasho wixii ka dambeeya umar bin khattab waxa uu yiri is xisaabi intaan lagu xisaabin is miisaan intaan lagu miisaamin adiladaas oo dhan waxaan ugu dalnayahay inaan nafta hantino oo aan xisaabino intaan la xisaabin xisaabi naftaada intaan lagu xisaabin qodobka shanaad inaad joogtayso cibaadada korna aad u sii qaado cibaadada oo la badiyaa waa wax lagu kala hormaray joogteynta cibaadaduna haba yaraatee waa mid ka khayr badan cibaadada marmar la sameeyo ama marna laga tago marna la sameeyo hadaad cibaado yareed tani waa bishii boqorada ahay ka faa'iideyso oo badi oo dadaal ku dar dadaalkii hore ilaahay baa kula jiray qodobka lixaad qalbiga inaynu nadiifino urxumidu waa mid imaanaysa inta la nool yahay balse waxa la isku dhaafay waa cafinta iyo ursamaanta intaan la gelin ramadaan aan nadiifino qulubteena dheh afis bay iga yihiin qof walba uu wax dhaxmaray adigoo ilaahay dartiisa u sameynaya arinta qodobka toddobaad inaan adkaarta badino iyo ducooyinka inaan ilaahay in badan barino ducaysano sababtoo ah waa mid naxariis badan ilaahay waana mid afis badan rabbi waxaan rabno isaga noo sameyn kara waxaynu weydiisana isaga na siinaya qodobka sideedaad xuska ilaahay inaynu badino xusida rabbi xili walba ay waajib tahay balse bishaan aan laba jibaarno caaqiladu waxay dhahaan rag way kala tageen ordna maaha u dhawaansho rabbi baa lagu kala tagay tartanka xagga alle yaana lagaaga hormarin yaana lagaaga badin allahna guuleeyay qodobka sagaalaad alla ka cabsigu waa wax lagu kala tagay sababtoo ah qofkii rabbi ka baqaa wuu cibaadaysanayaa wuu dhowrsanaanayaa wax walba wanaagsan iyo xun ayuuna kala garanayaa marka inta bishaan ramadaan inta lagu guudi jiro waa in aad laba jibaartaa cabsida ilaahay waa in la kordhiyaa hadaad alle ka baqdo isaga wax walba ku naqanaya qodobka 10aad inaan alle u toobad keenno rasuulka waxa uu yiri bini aadamka oo dhan waa ay khaldamaan balse kuwa khaldameen waxa ugu qiimo badan kuwa alle u soo laabta dambi walba oo aynu galnay rabbi waa uu inoo dhaafayaa balse waa inaan rabbi u laabanaa dambigeena iyo dambiga waalidiinteena Allah dhaafo ramadaan mubaarak ramadaan waa uu soo dhaw yahay aynu u diyaar garowno insha Allah